shirkadda diyaaradaha Daalo Airline oo in ka badan nus qarni soo shaqeynaysa ayaa sanadkan noqotay shirkaddii ugu horeysay ee xujay Soomaaliyeed ka qaada garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho. mar kale ay safka hore ka gashay shirkadaha diyaaradaha ee guulaha la taaban kara ka soo hooyay arrimaha xajka. Khamiistii oo duulimaadada xajka ay si toos ah uga bilowday Muqdisho ilaa iyo hadda waxay samaysay ilaa 6 duulimaad oo duulimaadkiiba ay qaadisay in ka badan 100 xujay Soomaaliyeed. iyadoo lagu amaanay doorka weyn ay ka qaadatay arrimaha xajka ayaa TV-ga Somali Cable waxa uu maanta u kurgalay shaqada ay u hayaan xujayada Soomaaliyeed waxaana booqanay xilli xafiiska ay shaqo ka socotay. Cabdishakuur Maxamed Cali madaxa suuqgeynta shirkadda Daalo ayaa sheegay in mar walba ay diyaar u yihiin qancinta macaamiishooda. waxa Ilaahay mahadiya in Daalo Airline ay noqotay kambanigii ugu horeeyay ee xujay ka qaada garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Daalo Airline waxay ku sifowday oo noqotay diyaaradii koowaad ee xujay ka qaada magaalada Muqdisho iyada oo Muqdisho toos uga kacday toosna u aaday Jidda. maalintii Khamiista 18 bisha ahayd Daalo Airline waxay qaaday xujaydeedii koowaad 19 bishana waxay ka qaaday Hargeysa iyo Muqdisho. maanta oo bishu tahay maalin Sabti ah oo 20 bisha July ah waxay xujay ka qaadaysaa Muqdisho 2 jeer. gelinkii hore saakana way ka qaaday gelinka dambana way ka qaadaysaa. Daalo Airline diyaaradaha waxay kaga duwan tahay kale waa diyaarad Soomaaliyeed waxay toos uga kacaysaa magaalada Muqdisho toosna waxay uga soo Jidda hadhowna Jidda ka soo qaasay Muqdisho halka diyaaradaha kale ay Nairobi iyo Djibouti iyo meelo kala maraya waqti dheer ay ku qaadanayso xujayda. haddaba waxaan ugu bushaareynaa dadweynaha Soomaaliyeed Daalo Airline inay tahay diyaaradda koowaad ee dalka ay leeyahay taasoo ku sifowday inay mar walba xaajiga ugu adeegto si sifaysan uu isagu raalli ka yahay falaydadiisa. Daalo Airline xujayda ay sanadka qaadaysa waxay ka qaadi doontaa gobolada dalka Muqdisho, Hargeysa, Boosaaso, Garowe. waxaan kaloo inta la socodsiinaya Daalo Airline dadweynaha xajiya oo dadkaas oo ah dad waayeelo xujeeya in mar walba ay diyaaradooda Soomaaliyeed ku tashadaan taasoo daal iyo aan lahayn tacaddi. Axmed Maxamed Cismaan Gure oo kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda Daalo ayaa sheegay in shirkadda 3 saac bar ay xujayada Soomaaliyeed si toos ah ku gaarsiinayso Jidda isagoona baaq u diray dawladda federaalka Soomaaliya. wuxuu ka sokeynaya Jidda 3 saacadood iyo bar ma aha in xujayada la mariyo 2 maalmood taransida ama 2 meelood ay sii marayaan iyadoo la helayo diyaarad toos ah oo wadani ah. dawladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay ilaaliyaan xuquuqda muwaadiniinta iyo hantida Soomaaliyeed lagana ilaaliyo shirkadahan xoogga waaweyn oo aanan la tartami karin inayna dumin. madaxa suuqgeynta shirkadda Daalo Airline ayaa sheegay in habeen iyo maalin ay ka shaqeyn doonaan duulimaadada xajka si xujayada Soomaaliyeed ay u soo gutaan waajibaadka xajka. sanadkan wayba ka sii adag tahay oo waqtiga gabaabsiyaba oo yuusarada dawladdu keentay waqti ciriiri keenay way soo daaheen saas awgeed habeen iyo maalinba waa la qaadaya. imanka xalay waanu qaadnay oo waxaan qaadnay steady fiidmo caawna waan qaadayna. mid ka mid ah xujayada Soomaaliyeed ay qaaday shirkadda Daalo ayaa ka mahadceliyay shaqada ay Daalo u haysan ummadda. waa mahadnaqaynaa inuu gadaasho alla fidnaynin anikan allana fidnayn samra nageeyo ayakan waa ku mahadsiyiin shirkadda Daalo Airline hadduu alla yiraah waa adii salaani. dhanka kale wasiir ku-xigeenka awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya Cismaan Aadan Dhuubo ayaa maanta kormeeray xarunta shirkadda Daalo Airline oo shaqo aad u xooggan ay ka socotay. wasiirka ayaa uga mahadceliyay sida ay bulshada Soomaaliyeed uga adeegayso shirkadda. dadaalka Daalo runtii muuqaalkeedan ahayd in dufcadii afraad ay tagtay caawin aan rajeynayna 2 kale inay maanta ay gudbaan. runtii waa wax kulliga Soomaaliya oo dhan u ah najax muddada koobneed iyo hawsha kulliba noo qabsoontay ilaahan ugu mahadcelinaa. markaasna waxaan leenahay dadaalkeeda inta surulaayeen surakum way thabat aqdaamakum. waxaan wada soconno loo shaqeynaya horta waa cibaado allana loogu dhawaanayo. waxaa ka garan kartaan khamiis iyo maanta oo sabti ah inta fiisa ee diyaarka wax la arkay ma. Axmed Maxamed Cismaan Gure oo kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda ayaa ka mahadceliyay booqashada wasiirka. waan ka mahadcelinaynaa dadaalka wasaaradda iyo ay wasiiradu ay wadaan waan ku soo dhaweynaynaa hawsha kormeerkiisana waa ku mahadsan yahay. wax badanna waan aragnay oo waan tusnay xalkoodana waa la helayaa.
sidaas iyo shirkadda Daalo Airlines mar walbaba waxaan ku hawlanayn oo adeega xujayda oo aan ilaa rubuc qarni soo wadnay haddana aan wali wadno wasiirka iyo wasaaraduna waa mahadsan yihiin. Cabdiraxiin Caylaawe, Somali Cable, Muqdisho.